koobka adduunka ee FIFA waa tartanka kubadda cagta ee ugu weyn uguna caansan adduunka kaas oo la qabto 4 sanaba mar. koobka adduunka waxa uu martigeliyaa 32 xul ee ugu sarreeya xulalka qaranka. Haddaba daawade muuqaalkan waxaan idinku soo bandhigi doonaa 10 xaqiiqo oo ku saabsan koobka adduunka FIFA ee 2022 uu dalka Qatar martigelinayo ee la socod wacan. koobkii adduunka ee ugu horreeyay ee xilli jiilaal ah la qabto. koobka adduunka ee 2022 ee lagu qabanayo waddanka Qatar ayaa noqonaya koobkii adduunka ee ugu horreeyay ee xilli jiilaal ah la qabto sababo la xiriira cimilada awgeed. sida caadada ah tartamada koobka adduunka ee FIFA ayaa la qaban jiray xilliga xagaaga gaar ahaan bilaha Juun iyo Julaay. hase yeeshee xiriirka kubadda cagta ee FIFA ayaa go'aamiyey in la qabto koobka adduunka ee 2022 xilli jiilaal ah bilaha November iyo December. maadaama waddanka martigelinaya koobka adduunka ee dalka Qatar cimiladiisu tahay mid aad u kulul xilliga xagaaga taasoo adag tahay in la ciyaaro. heerkulka xilliga xagaaga ee waddanka Qatar ayaa qiyaas ahaan gaara 45 digrii ilaa 50 digrii waana xilliyada ay ugu daran tahay. koobkii adduunka ee abid ugu qaalisanaa. koobka adduunka ee 2022 ee lagu qabanayo waddanka Qatar ayaa noqonaya koobkii adduunka ee ugu qaalisanaa abid marka loo eego kuwii ka horreeyay qarashaadka ku baxay qabanqaabadiisa. dalka Qatar ma lahayn kaabayaal dhaqaale oo badan kuwaas oo loo baahnaa inuu yeesho dalka martigelinaya koobka adduunka. sidaas darteed Qatar waxay ku qasbanaatay inay dhisto waxyaabo badan oo ay eber ka bilowdo kaabayaasha oo ay ku jiraan garoomo, hoteelo, waddooyin iyo qaar kale. Qatar ayaa la sheegay inay ku qarash garaysay qabanqaabada koobka adduunka ee 2022 qiyaas ahaan in ka badan 200 oo bilyan oo doolarka Maraykanka ah. koobkii adduunka ee ugu horreeyay ee abid lagu qabto dal Carbeed oo Muslim ah. koobka adduunka ee 2022 ee lagu qabanayo waddanka Qatar ayaa noqonaya koobkii adduunka ee ugu horreeyay ee abid lagu qabto dal Carbeed oo Muslim ah. dalkii ugu yaraa ee martigeliya koobka adduunka ee FIFA. dalka Qatar oo martigelinaya koobka adduunka ee 2022 ayaa noqday dalkii ugu yaraa juquraafi ahaan iyo dad ahaanba kii ugu yaraa ee abid martigeliya koobka adduunka ee FIFA. Qatar waa dal yar oo baaxaddiisu tahay 11,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. dalka Qatar oo ay ku nool yihiin qiyaastii 2.6 milyan oo dad ah ayaa geli doona buugaagta rikoorka ah ee xiriirka kubadda cagta ee FIFA. koobkii adduunka FIFA ee labaad ee lagu qabto Aasiya. koobka adduunka FIFA ee 2022 ee lagu qabanayo dalka Qatar ayaa noqonaya kii labaad ee lagu qabto qaaradda Aasiya. markii ugu horreysay ee lagu qabto waxay ahayd sanadkii 2002 markii Jabaan iyo Koonfurta Kuuriya ay si wada jir ah u wada qabanqaabiyeen koobka adduunka ee FIFA markii ugu horreysay. koobkii adduunka ee ugu dambeeyay ee ay 30 qaran ay ka qaybgeli doonaan. koobka adduunka ee 2022 ee lagu qabanayo dalka Qatar ayaa noqonaya kii ugu dambeeyay ee ay tirada waddamada ka qaybgalaya ay yihiin 30 waddan. sababtoo ah koobka adduunka ee kan xiga ee la qaban doono sanadka 2026 tirada waddamada ka qaybgeli doona waxay noqon doonaan 48 kaas ooy martigelin doonaan dalka Maraykanka, dalka Mexico iyo dalka Kanada. tirada garoomadii ugu yaraa ee lagu qabanayo koobka adduunka. 8 garoon oo keliya ayay Qatar u diyaarisay inay ku martigeliso koobka adduunka FIFA ee 2022 taasoo ah tiradii ugu yarayd ee lagu qabto koobka adduunka sannadihii u dambeeyey. runtii dhammaan 8 garoon ee loo doortay in lagu qabto tartankan ayaa mid keliya ayaa gebi ahaanba dib u habayn lagu sameeyey halka 7 kale ay yihiin kuwa cusub oo dalka laga dhisay. sidaa darteed ciyaaraha waxaa lagu qaban doonaa keliya 8 garoon taas oo ka dhigaysa tirada garoomadii ugu yaraa ee lagu qabanayo koobka adduunka tan iyo sannadkii 1978. mucjisada garoonka 974. garoonka 974 waa garoon qurux badan oo ka mid ah garoommada martigelinaya koobka adduunka ay Qatar dhistay kaas ooy si weyn dadku u hadal hayaan.
haddaba waxyaabaha uu garoonkani kuwa kale kaga duwan yahay ayaa ah inuu yahay mid si ku meel gaar ah loo dhisay oo gebi ahaan la kala furfuri karo marka uu dhammaado koobku. waana garoonkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee la dhiso taariikhda koobka adduunka FIFA, kaas oo ah mid kala furfurma oo laga sameeyey 974 koontaneel oo ah kuwa shixnadaha lagu qaado. sidoo kale tirada 974 waa furaha telefoonka ee waddanka Qatar. garoonkan waxaa loogu talagalay inuu u ekaado muuqaalka deked qadiimi ah, waxaana uu qaadi doonaa 40,000 oo taageerayaal ah. 9. ciyaarta faynalku waa maalin ay ku beegan tahay sanad guurada qarannimada ee dalka Qatar. 18 bisha Disembar 2022 waa maalinta la soo gabagabayn doono koobka adduunka ee FIFA, wana maalinta ay dhacayso ciyaarta faynalka ee lagu soo xidhi doono koobka adduunka ee 2022 ay martigelisay Qatar. sidoo kale 18 bisha Disembar 2022 waa maalinta qarannimada ee dalka Qatar, sidaas awgeed dadka reer Qatar waxay u noqon doontaa maalin qaali ah ooy weligood xasuustaan. 10 koobkii adduunka ee ugu dambeeyey ay xiddigaha ugu caansan kubadda cagta ay ciyaaraan. koobka adduunka FIFA ee 2022 ee lagu qabanayo dalka Qatar ayaa laga yaabaa inuu noqdo kii ugu dambeeyey ee ay ciyaaraan qaar badan oo ka mid ah xiddigaha ugu caansan haatan kubadda cagta sababo la xiriira cimrigooda. xiddigahan ayay u badan tahay inaad ku arki doonin koobka adduunka mar kale ayagoo ciyaaraya. haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso ood leedahay xiddigahaas kuwa ay yihiin, ama laga yaabaa inaad garanaysaba. haddii aan mid iyo labo soo qaadano xiddigahaas, waxa ugu horreeya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Di Maria iyo qaar kale oo badan, kuwaas ooy dhowdahay xilligii ay ciyaaraha isaga fariisan lahaayeen. haddaba adiga maxay kula tahay, ma sii ciyaari karaan xiddigahani koobka adduunka ee kan xiga? fadlan raayigaaga nagula wadaag qaybta komeentiga. mahadsanid.